xaaladda abaareed ee dalka ka jirta ayaa maalinta ka dambaysa sii daraysa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliyana uguma jiraan waxaa deegaanka Buurfuul oo kamid ah deegaanada hoostaga degmada Baydhabo dadkiisa ay u barakacayaan isla degmada Baydhabo si ay u maciinbidaan nolosha deegaanka Buurfuul. Faisal Daayo Xuseen oo ku sugan Baydhabo ayaa warbixintaasi soo diray. qoysaska ay ka soo barakacayaan deegaanadooda ma kuwa joogsi leh waxaana magaalada Baydhabo maalin waliba soo gaaraya dad ay ka soo barakeen deegaanadoodii qaarna waxay yihiin kuwa xaamila oo ku dhashay wadada qaarna waxay ku dhaleen banaanka kaamka uma soo dhawa farmisho iska daaya isbitaal hooyadii dhallaanka Bishaara Miris Maxamuud waxay ka soo barakacday deegaanka Buurfuul ee gobolka Bay waxay ku soo dhashay wadada aad wax uma maqasho markii aan booqanay kaamka waxay fadhiisay banaanka kaamka Liibaan kow waxaan la sheekaystay hooyadeeda oo lagu magacaabo Muumuna Xamuud Sheekh Mustafa iyadoona ay ga warbixisay gabadheeda wiilka meesha ay ku soo dhashay mayka dhalay Orosfiin gabadha rawa ka dhalay haye marka gabartuun deegaanka ku bogtaalna gabartuun may ku bogtaalay Buurfuul ku bogtaalni shalay asarkii banaanki kor ambad la ray ya ina gungaar aan okwen ya wada dunya saka dhal oo ku kor ambada soo barin ma baawar haatan gaari dameer hara maga inta gaari dameeras ku ran ha marka hata xaaladda kaamku isan kiloolinsaad kaabka ana kanoolno kaab maanta meedhay wal unkumada wan abaar ya suktameen haye ha marka hata isan kun daasha jatan wal daasha isan gajatan daasha li raw an marka dhamnanta ha hadda lay dararku ilay darar marka ma gooski ma ka kooban ma tira isan ka koobantiin an hadda kun lay in koonay dad kun lay ka kooban isan ma ka ku kooytan an yo anagu bilaadun ni arinyashe haye ileen marka deegaanka hoola dhagatig haytan ama beeraley haytan beeraley hoola dhagate yahayn haye hoolaywan hoolagi hedadkii kolkole meel siis ku taba sukutabni haye qaraabadi hedadka babadanaya son ku tab haye ha hata kaamkun sankano liingmay oo soo lahayteen hadii maamadoon jidka ka dhalle buushna haysana banaan ile maanayana atiya fadhida may oo soo lahayteen هنقولها هرتها باللانكي ميل إسوق كوي ولا إسوق أصداو هل سني كلمة مسلم كبسك ولا إسوق سني كلمة كهان أوك hawo isaaq bilal iyaduna waxay ku dhashay kaamka binaankiisa ma ku jirin markii hore oosh ay saxato waxaana markii ay dhashay oosh u dhisay qaar ka mid ah dadka ku nool kaamka Liibaan kow bugtaalay beenglo barkaasya buljeed gabadhilay haye inagu inta ka dhaligay reeruhu bogshay haye wiila ka dhari marka hata xaaladda saad xaaladda eedan ka shaqsanay haye waan hadda ka shaqgilaygaw marka me ber kaamku wada ka jarta aw kaanku may ka jare liber waan geeglay buushku magana dhali leelentay la ka dhisi ma sha Allah ay keen dhisi muslimku oo aan ii jari haye widaadku halan dhiso eri haye gadoomiye kaamka ha marka hata maalintii me awlaad qabtaa li ana anil inka todoba awsho inka awsho maalintii suuga ma ku sheenay suuma mayay walu sahayo ba malab haye hadda muslimku asima walkal waa kumbari wal koob shaay mayna madan haye inta walaaba miyaan haye aan muslimku asiin gabar yaroodo ii jirta dukoor waab aniba mal karin bariis leeyahay deegaankaada ku qatay ma helay magaaje buulijadii marka xaaladiis aad ma roogdi ma ka dhagada jartay ma holo dhagatay haytay beerley ka dhagaday beeray meesan oo seen ban lamsan gu ideera walan ka ban xaaladda hata saas ku aragahay xaaladda daarku eedan ka shaqsano may baaga darsada lahayd tigay kalaasiin gurmud kor wal alwalilah in gurmud kor bariis ku burku sariirtu sokortu wala nigeekan fadaanaba malab maykiinka doran oo isla digeeka xaalad oo ka jarta ko ambibi aabahay waxa uu geeriyo udurka shumbiyeedka hooyadayna waxay ku soo dhashay wadada aniga ayaa hadda waxa uu kariyo walaalahayga mana aboodo saasi waxa ay sheegay Habibo Abdunuur Xasana hooday jidka dhali haye oo ka shumbiyeed jidka dili inta ku bugtaaleen anu buljeeda qoyn buljeedid gaari dameer halatan ismeeratan wardaan luga ka dareerin dil dhata baawrna no saari aabonta ka dhimaday meel ka dhimaday bulu barakum gilha moodo hay yaa ka dhimaday haye daash ko bariyaasan aamin ha haye marka awlaadu ay wadan kariye ana lee wadan kariya haye walan tala ku sheena wadan kariyo wal muslimku la xuquuq qaadile haye marka me beran tiroodan oo kalitayna oo kalitina noolin hata saata
nololayna duwar jidoon la ku qaaday walkaama hadda marka maalin kasta waa lan kareemaysa maal isin qadaasana jirta maalinta hata kale waleen kariya haye amiin ku hata kale waleen kariya meega san jirta anwa ana tumiya farajar awlaadun qaado kortay nololiyo ada sadahadii ka socota anwa ma haye mee oo soo lahaayteen oo isin baaga darsan lahaayteen gurule dad nasiile amayn ma may heedo iyo isin ku soo lahaayteen oo la siin gargaare anwa guruna aan iyo wala ka barin leefadaan daawadayaal sida siin jeedan gabartun 14 jaro oo shajidka shambiyada ka diri aadiyana jidka ka dhadhay sida in sheegdi awlaadu isin in jeedan way bua haan iyo wakiilku waa isla markaasina diadiyana 14 sano jar daashku isin jeedan daawade may buu ko dhahankeen ku reebana kulana dadkeen ku reebana balse dhidoodan hataa laga xitay bua to kaamku ana kala jirta marhaantaasi daashka usoo in ku reebahayna daawada koranba nanka tanta jeefadaha isla marhaantaasina usoo ku gabadaha iriida dadka qaar waxay yihiin ku ay ku dhimanayaan wadada taasoo ay tahay inta isleeyihiin naftaada badbaaso ayaa u geeriyoonayaan haraad gaajo iyo udurka shimbiyoodka walaal aawi walaalkaaga Faisal Xuseen Africa Cable TV magaalada Baydhabo.